بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد ولله أجمعين. الحمد لله إلهي بام هذا السكاله Gudiga Abaaraha magaalada Borlänge isuxil saaray walaalahooda gobolada Soomaaliya abaartu ku dhacday in ay u aruuriyaan qutulyoon ay cunaan iyo biyo ay cabaan. Halkan galabtay wuxuu iskugu keenay lacag tiradeedu dhan tahay 722,450 karoon oo u dhiganta 7,331 dollar u dhiganto. Walaalahood bay ugu deeqeen in ilaahay kaga bixiyo dhibka ay ku jiraan, roob iyo caafimaadna ilaahay ku siiyo, ayagana kuwa halkan joogana ilaahay ayaga iyo awlaadooda ku badbaadiyo, caafimaadna ku siiyo. Aniga oo ku hadlayo guddiga lacagta aruuriyay degmada Borlänge ama Gobolada, anigoo ku hadlayo magacaygana la yiraahdo Maxamed Daawud Xaashi dalka Sweden. Waxaanu soo gudbinay oo aan u soo gudbinay guddiga abaaraha waqooyi galbeed lacagta tiradeedu ay tahay 72,430 karoon inay ahayd, loo bedelay 7,331 dollar ayaan u soo gudbinay, taas oo loogu talagalay walaalaha Sweden jooga ay u qoondeeyeen walaalahooda abaartu hayso inay ugu deeqaan. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد ونصلي على رسول الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan lacagta 7,331 aan u dhiibaynaa oo nooga wakiila Sheekh Maxamed Aadan Cadhoole oo guddida abaaraha gobolada waqooyi ee Sool iyo Sanaag oo ay ka mid yihiin Sool iyo Sanaag iyo Togdheer. ninka odayga baanu u xil saaranay, ninka odayga baanu ku wareejinaynaa, isagaana degmada Borlänge nooga wakiila. wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum wa rahmatullah.